الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يالي مروين بلشدة قالقة نوgu xidhan sharafta badan leh kusoo dhawaada xalqadii 14aad ee barnaamijkeena talooyin wax ku ool ah. xalqadan waxaan kaga hadlaynaa oo aynu ku soo qaadan doonaa xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliland. sidaan ogsoonahay anigu wax ka soo jeeda shakhsi ahaan Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland dalkeenaasi hadaynu nahay reer Soomaaliland oo gaar u la hadlaa iyaga xeer ciqaabeed ma leh. waxyaabaha aad aragtay bariyaan dambe aadka u soo noqnoqda waxaa ka mid ah in dad badan la xidho iyadoo aan waaraan loo soo goosanin, dad badan xabsiyada la geliyo, dad badan xuquuqdooda lagu xadgudbo, dad badan xabsiga la iskaga sii hayo iyagoo qoladii xeer ilaalinta dacwada ku soo oogtay qofkaas aanay soo diyaarinin kiiskoodii soo diyaarin oo aanay wax cadeyma haynin waana dhibaatooyinka waaweyn ee haysta nidaamkan la yiraahdo afka Ingiriisiga criminal justice system of Somaliland ama nidaamka cadaaladda ee dalka jamhuuriyadda Somaliland oo dadka dhibaatooyin badan ku ay reer Somaliland dad badan oo arrimaha bini'aadamka u dooda activists dad badan oo wariyaal oo xuquuqda saxaafadda ka hadla xuquuqda bulshada ka hadla warkooda sida saxda ah soo bandhiga baaritaano arrimo badan oo ku saabsan sameeya laakiin xuquuqdooda hadiyama waa lagu xadgudbaa. sababta keentay waxa soo dhan waxa weeyaan aan u shakhsi ahaan aaminsanahay dad bulshada badan reer Somaliland haddii ogtahay haddaanay ogeyn ba jirta waxa weeyaan Somaliland ma leh xeer ciqaabeed. Somaliland waa dal kaliya adduunyada ku yaala aan lahayn waxa afka Ingiriisiga lagu yiraahdo penal code ama xeer ciqaabeed aan lahayn. xeerka ciqaabta ee hadda laga isticmaalo maxkamadaheena waa xeerka ciqaabta ee dalka aynu jaarkanahay Soomaaliya uu berigii iska lahaa berigii waxaana xeerkaas hirgeliyay ninkii la oran jiray Siyaad Barre 70aadkii dictatorka ahaa ee aaminsanaa waxyaabahan gaaladu aaminsan yihiin la yiraahdo socialism ama shuuciyadda. marka ninkaasa berigaas ka lahaa isagaana maxay hayday scientific socialism dalku ma amli jiray. marka wixiisa dictatornimada uu ku isticmaalay soo dadka uu caburiyo oo aanay dadku u hadlin oo ay warbaahintu madax banaanin wadigooga beriga waxa jiri jiray maxay warbaahin madax banaan ma jiri jirin. waxa jiri jiray warbaahin dawladeed oo kaliya baa xilligii dawladii kacaanka ee uu mujrimkii weynaa Siyaad Barre uu hogaaminayay marka ma jiro waxa jiri jiray 12 October jaraa'id la yiraahdo dawladdu iska leedahay radio Muqdisho radio Hargeysa waxa dhan maxay hay'ado warbaahinada dawliga ah kuwa kale madax banaan ma jirin. dawladihii shuuciyada aaminsan wax madax banaan kama jirin wadigooga Russia Soviet Unionkii midowgii Soviet dhulkooda wax warbaahin madax banaan kama jirin. dadka xataa inay hadalkooda xataa fikradooda inay soo bandhigaan lama rabin lama ogolaan. waxaad ogsoon tahay dalkii Shiinaha la oran jiray oo ilaa haddadaas jira warbaahin madax banaan kama jirto berigaana kama jirin. shuuciyadana waa aaminsan yahay sida baashkala North Korea shuuciyada aaminsan tahay warbaahin madax banaan kama jirto lama ogola xataa ra'yiga la soo bandhigo. marka ninkaas beriga hirgeliyay ninka dimuqraadiyadda ka soo horjeeday ninka ka soo horjeeday xorriyatul qowlka ninka ka soo horjeeday diinta islaamka uu hirgeliyay ayaa dalkeena Soomaaliland maanta lagu dhaqaya waana ceeb bay ku tahay dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland. dawladeena ceeb ku tahay golaheena wakiilada iyo hay'adaheena sharci dejinta ayaa ceeb ku tahay oo xalqadii ugu horeysay aan kaga hadalnay xalqadii tan ka horeysay aan kaga hadalnay hay'ad dejinta iyo shaqada ay qabato oo ilaa haddada hay'adaha sharci dejintu iyo dawladdu waxay ku guul daraysteen in golaha wakiilada la horkeeno iska xataa in la ansixiyo in la horkeeno xeerka ciqaabta guud ee Somaliland oo la diyaariyay oo maamula maxay hay'adaha nidaamka cadaaladda dalkeena jamhuuriyadda Somaliland oo haddii xeerkaas la ansixiyo oo qodobo fiican oo nadiif ah la geliyo oo aan la iska koobi karin kii hore qashinka ah ee la isticmaalay xamar iska lahayd uu samayn doono in bulshadeennu ay xor noqoto in warbaahinteenu ay noqoto warbaahin madax banaan oo xuquuq leh oo xeerkaasi sheegay in qofka aan bilaa waaran la iska xidhin inaan la iska xidhin ayuu sameynaya. way hadda dadkeen waaran la'aan baa la iska wada xidhanaya xabsiga la iska tuuray sababtoo ah xeer ciqaabeed ma lihin. xeerka ciqaabtu wuxuu sheegi lahaa dadka marka arrimaha waaran oo kale noqoto inaan مثلا inkastoo sharciga laga aqoon badan yahay laakiin hadana waxaan xeerka ciqaabta guud adduunyada kale ma akhristay oo aan soo arkay waxyaabaha ku jira xeerka ciqaabta guud marka la sameynayo marka uu timaado arrimaha waaranka qofka goorma la soo xidhaya waaranka si loo soo goosanaya marka la boolisku
هذا دباتوين كوين سومالي عشان بوليس waxay ka baqayaan waxay ku oranayaan marka ku jira maxaa waara qofku uu gooso weyd waxay ku oranayaan waxaan ka baqaynaa qofkaas inuu cararo uma baahnid inaad ka baqatid xeerka ciqaabta guud hadii la sameeyo hadda waxa la oranayaa boolisku qasab qofka intaanay taabanin oo aanay ku dhigin qofka marka kaliya bilaa waaran lagu xiri karo xeerka ciqaabta guud ee adduunyada kale marka aragto adduunyada horumartay oo isticmaasho qofka marka bilaa waaran lagu xiri karo waa marka boolisku ay ku qabtaan isagoo dambigii faraha kula jira markaas ay soo istaageen askarigu soo istaagay ayuu arkay ninkii markaa wax hadaya markaas bilaa waaran ku qabanay qofka way qofku markaas uu dambi faraha kula jira marka aad ka qabato weeyaan bulshada intuu dhibaateyn la aad ka qabato weeyaan markaas laakiin marka qofku uu dambigii mar hore gacay aduu hadda toolaad reaction ka bixinaysa la boolisku reaction bay ka bixinayaan dambigii dhacay mugti marka qofka dib galiso waxa la rabaa marka aad waaran raadsato marka sababta qofka dambi kuma qabanay laakiin dambi baa lagu soo eeday oo lagu sheegay ama qoraal ku tiri qofkaas dambi uu galay ama muuqaal daawatay aad ka aragtay ama meel baad ka aragtay qofkaas inuu dambi galay sidoo qofkina soo xidhaad rabtaa laakiin saad u soo xidho waxaad u baahantahay waaran baad u baahantahay waaranka maxkamadda tagaysa marka adoo cadeymaha kiis adag bi horgeystay idinka iyo xeer ilaalinta israacaya maxkamadda hortagaysa maxkamadda waaran baa ka dalmaysa maxkamaddu uma baahna xataa inaad maxay heeday qofkii kale u yeedhid oo looyaradiisa loo sii sheego uma baahna maxkamad marka waaranka goynayso waxa u baahan tahay just inay dhageysato kiiskaas ay akhrido oo ay baadho cadeymaha ku hoos jira haddii aragto kiisku inuu kiis culus yahay qofkana uu dambigu ku cad yahay tan ay tahdo soo qabta qofka kadibna waaranka u jarto booliska من بوليس مركا وارك على وجه قفك هدو دلك كم قيني مركا أما وعرّا وربحنتي بوليس كوني ساق بني أما مقلي أما نوحو واحد عضي إن وقفكو محيا إذا ودرامي وقفكو ودرامي إن بوليس قفكو إنه درامي إن ay boolisku ay dareemeen qofkaasi inaanu dalka joogin inuu dhuumanayo inaanay soo qaban karin waxa la sameeyay waarankaas bending buu ahaanaya iska yaalaya meesha bending buu ahaanaya halkaas iska yaalaya ilaa maalinta qofka laga soo xirayo oo waaranka laga fulinayo waaranku meeshaas iska yaalaya halkaas iska daadsanaanaya waaranku waanu helaya qofka marka in booliska baqdaan ma ahayn waaranku qofku naga baxsanaya waxaas waaranku qofku marka dalka joogo wala soo qabal lagu soo qabanaya markaas aan la fulinay hadaanu dalka joogin qofku waaranka meeshaas iska yaalaya maalintu ama garoonka diyaaradda ka soo dego ama maxay kastamyada xuduudaha dalka soo galo ama dhuumashadii dalka dhexdiisa ku dhex dhuumanayo marka dambe la arko ama saldhig boolis ay arkaan ama ciidamo ay arkaan markaas bay waarankaas ay gelinayaan oo ay fulinayaan boolis kasta dalka jooga meel kasta ama wajaalaha ama bariyaha ama galbeedka Soomaaliya markaas ay fulinayaan waaranka marka boolisku inay markaas waaran soo kadib qof markuu waaran loo soo gooyo waarankii la fuliyo xabsi qofka la soo geliyo kadibna waxa la sameeynaya oo lagu hirgelinaya waarankaas oo lagu fulinaya in qofkii markaas maxay idii la sameeyo inuu isagu hadhow toolo maxkamadda hadii booliska wali gacantiisa ku jiro waxa la rabaa 4 saacadood ama 48 saacadood la rabaa in maxkamadda lagu horgeeyo qofkaas kiiskiisa marka la soo qabto kadib 48 saacadood booliska studiga ka badnaa haduu ku jiro boolisku iyaga dambi ku soo qofka inay iska sii daayaan ba fiican marka hadii kale iyaga arrinta maxkamadda qabsanaysa marka qofka haduu wali booliska gacantiisa ku jiro wuxuu dalban karaa waxa la yiraahdo police bond buu dalban karaa police bond waa sii dayn boolis damaanada boolisku ku sii daayaan weeyaan marka kiiskiisa maxkamadda loo gudbiyo ee uu saldhiga booliska ka baxay oo xabsiga markuu galana qofku markaas hoos imaanaya jurisdiction-ka maxkamadda maadaama jurisdiction maxkamadda hoos imaanaya maxkamaddu waxa u furan in ay sameeyso waxa la yiraahdo court bail qofkan ay siiso damaanad maxkamadeed lagu sii daayo oo saako baxo kadib qofku daniisu iska wadanaya soo kiiskiina socdo oo maalin kasta soo xadirayo maxkamadda marka waxyaabahaas oo dhan buu sameyn lahaa xeerka ciqaabta guud hadii la fuliyo oo ku dhex jiri lahaa si yar oo kooban xeerka ciqaabta guud uga hadlay laakiin insha Allah mar baan si wanaagsan bal aan uga hadli doonaa laakiin Soomaaliland mar baa idii sheegay shacabka reer Soomaaliland dalkeena Soomaaliland hadeen rabno in cadaalad inay ka dhacdo hadeen rabno in nidaamka dadka la iska xirayo ay dhamaato dambigu ma dambi xukuumadda marba fadhiya ay saaran ma aha iyo inay jeceshay inuu iska xidho laakiin waxa waa dambi ka jira
ودنب كجرا إن دلكينا لهين حير عقابات قولهن وكيلة يحلباندنا يكون قول درستين إن حير عقابات قولها وكيلة ظهر كينا قولها قورت ظهر جيا مدحوينه نوع الصحيح إلا هذا يكون قول درستين حير عقابات تقول أنت مسمى إنه وحير عقابات جودة نظيفة وعدالة إلى أن شرع دين الإسلام خدع معي أو حقوق بقف بالعالم كان إلى أن إلا أنت ينقص إحنا إنه دلكينا نظام كيس عدالة وحبا بعك خلدا هذا يدل ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا سمكسوق بجويني مقال كيني ما أنت هذا كاشين لايك سبسكرايب نصارى أدم ما سنتي السلام عليكم.